waxaanu haynaa kuwii kabaha taagay, waxaanu haynaa kuwii abaabulayey, waanaanu daba joognaa kuwii lacagta bixinayey. taana ma yeelayno. hadduu ninku xusbi oo haba ahaado hadduu doono xusbi, laakiin hadduu fal anshax darra'a sameeyo oo degaano iyo dad lagu shaambadaynayo, ama uu hub la galo meel, ama uu hadidaad la galo, dee ma yeelayno. waa shaqadaanu u xil saarnayn, tallaabaanu ka qaadaynaa, xusbina kaga haybadaysan mayno, waanaanu u digaynaa weliba cid kasta oo isku dayda. adeer horaana loogu soo qaatay qoryo, waanu ku dagaalanay, qarannimada waan ilaalinaynaa. waxa weeyaan dhagax lai soo qaato waynu iswada garanaynaa reer Burco. maaha markii ugu horraysay ee lay weeraro. gobol aan laygu weerarin ma jirto. ciddiina weerartayna qaarkood gacantaanu ku haynaa. waxaanaan horkeeni doonaa, sharcigaan horkeeni doonaa. waxaa intaasi dheer oo aan leeyahay xusbiyada inay iska daayaan naftood hafarka. bas ciyaal yaryar baa fuulaya, reer hebel baa xusbigaa gelaya. waa reer hebel baa ku dhammaadaa ma jiro. waana been. 2 qof ama 3 qof oo qoys ka mid a oo halkaa yimi oo xusbi gelaya, xaq bay u leeyihiin inay galaan. laakiin nin magac reer ku hadli karaa ma jiro. waynu iswada ognahay, waynu isnaqaanaa. naftiinna ha hafrina baan leeyahay runtii. iska daaya been abuurka iyo shooga beenka. riwaayad ma matelayno. xaqiiqaa la tegayaa, food baa lagu ridayaa, waa lagu kala baxayaa. wax allaala wuxuu shoo iyo idin tarayso iyo in laysku dayo nabadgelyada in la khalkhalgeliyo waana ka xaal siinayaa. waa ogeydeen habeen hore meelaha qaarkood xafladaha ka dhacayey, waxyaabaha lagaga hadlayey. ha ka waantoobaan baan leeyahay xusbiyadu hadallada xanafta leh iyo kelmadaha aan ku habboonayn degaanada ay la hadlayaan. degaanada qof waa soo geli karaa, labaa geli karo, 100 baa geli karo. waxaynu u samaysanay inuu nin waliba xorna u yahay inuu xusbi galo si uu fikirkiisa ugu dhiibto.